السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم. maanta waxaan inoo wadaa sambuuska waynu wada jecelnahay, waa cuntooyinkeena ugu caansan. walowlaynala wadaaga laakiin inagu qaabkaynu u samaysano waxyaabihii aan ka sameyneynay ayaa halkan inoo yaala. waxaynu hadda miisanaynaa milix ayaynu qiyaasanaynaa, hal malgaacad oo yar weeye, daqiiq, biyo iyo saliid baynu ka sameyneynaa. xashka hore 2 koob oo daqiiqan soo diyaarsaday aynu ku shubaynaa madimada. milixdii oo ah hal qaado oo yar ama malgacad waynu isku walaaqaynaa si yacni isu dhex galaan milixda iyo daqiiqdu, aanay hal meel kaliya ugu badanin. wax yar oo saliid baynu ku darsanaynaa iyadana, maasha Allah. kadib waxaynu ku daraynaa biyo yar oo aan soo yara kululeeyay. kulayl fara badan oo saayida maaha, waxoogaa yar oo fardiiris qandac qofba siduu u yaqaan ayaan biyaha ka soo dhigay. biyaha marba wax yar baad ku daraysaa si aad u aragtid qiyaasta uu qaadanayo daqiiqdu ay qaadanayso burku. waan xashay maasha Allah, si fiican baan isu dhexgeliyay. sambuuska waxaa iga soo dalbaday gabdho yaryar oo fara badan oo qurbaha ku koray oo doonaya in si fiican loogu sharxo. dadka waaweyn ama badanaa Soomaalida intooda badan way iska taqaanaa, marka waxoogaa baynu yara dhigaynaa. wax fixisa laguma darayo, waa daqiiq, waa intii aad arkayseen, waa daqiiq iyo milix, biyo iyo saliid keliyaan ku xashinay. halkan waxaa inoo yaala iyadana basal, basbaas iyo hilib shiishiid ama duqad. daqiiqdii baynu haddana soo yara jarjaranay, waxaan ka dhigay 8 gobol. 8 qaybood qaabkaynu u sameynayno oo arki doontaan. laba aynu haddii Ilaahay ka dhigay isu saaraynaa. laba markaad isu saarto ayaa ugu fudud. qofku waliba markuu bilow ku yahay sambuuska sameyntiisa labadaasaa fiican inuu isu saaro. hadhowto markaad maxaan ku idhaahdaaye xariif ku noqotana haddaad rabto 3 4 baad isu saari kartaa. hadda waynu isku qiyaasaynaa inay isleeg yihiin labada daqiiqood aynu isu saaraynaa ama xashka. wax yar oo saliida baynu kala dhex marinaynaa si markaynu hadhow kala fujinayno ay inoogu fududaato haddii Ilaahay ka dhigo. hadda waynu isu saaraynaa maasha Allah, si fiican hareeraha waa inaad iskaga xidhid, waanay saliidii banaanka usoo burqanin ama usoo bixin. marka si fiican baa la isu dhexgelinayaa. mid labaada kale inaad isku sii xidho saliida kaliya maahe, waxay ku sahlaysaa inaanay qiyaastii kala hadhin oo labadii qaybood ee la isa saaray ay wada socdaan inta la waxayo oo dhan haddii Ilaahay ka dhigo. marka la waxaad baynu sii wadaynaa, xoog baynu u ballaarinaynaa haddii Ilaahay ka dhigo. aayarna waad ku wadaysaa, yacni xoogaaga oo dhan isuguma geynaysid. maasha Allah. marbana dhinac baad u rogaysaa. daqiiqda haddaad aragto inay kaa yaraatay marba waad ku daraysaa wax yar. hadda sidaasaynu u fidinay, burkii waan kala bixinay, fooliyadii. maasha Allah. dhexdaynu ka kala qaybinaynaa, waxaynu ka dhigaynaa 4 qaybood. maqligaan rabaa inaan ku diirdiiriyo ama ku kululeeyo, kusoo yaro dubo. marka waa inaan usii jarjaro, saas daraadeed baan usii jarjaray. hareerahana hadda waan kasii yaro jarjarayaa si ay hadhow iigu fududaato. isleegaysina maqligu xoogaa wuu yaro kulul yahay, marka xoog looma shiilayo sidii sabaayadii oo kale. kaliya waad diirinaysaa, labada dhinac baad ka yara diirinaysaa si qayrinkii uu uga bo'o. marka maasha Allah, intaa in ka badan yacni ma kululeynaysid. de wax yar ku yaraa bahalowda oo ay midab yara samayso, yara casaatana dhib ma laha, laakiin waa inaanay adkaanin uun.
hadda waynu kala jeexaynaa. wax yar bay taalay. haddii farahaagu aanay kulaylka faraha badan xamili karin, wax yar oo ilaa daqiiqad 2 daqiiqo ah ayaad dhigi kartaa intuu kulaylku ka ba'ayo. kadib waad kala dilaacinaysaa. markaad kala dilaacisana bac ayaad gelinaysaa. haddii kale wuu qalalayaa oo hadhowto ma kuu hagaagayo. marka si aanu u qalalin waa inaad maxaan ku dhahdaa bacdaa geliso haddii ilaahay ka dhigo. maasha allah, foolyadii sambuuskayna wali wadnaa. mid kale ayaan idin tusayaa haddana sida laysu saarayo haddii ilaahay ka dhigo. waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iidi doontiin gabdhaha iga soo codsaday iyo gabdhaha kale ee aan garanayn iyo wiilasha labadaba ee raba inay bartaan sambuuska. waxaan rajeynayaa inay idin ka faa'iidi doontaan. haddii ay idin ka faa'iidaan ii soo duceeyay insha allah. maxaan ku idhaahdaaye commentiga waxaad ku soo qortaa feedbacka ama falcelin siday xaaladdu noqotay. wixii su-aalaha qabtiin waxaa kusoo qoraysaan commentiga iyadana haddii ilaahay yidhaahdo. maasha allah, xabadana waynu kala bixinay, iyadana waynu jarjarnay, waynu duubnay. weli hawshu sidii bay u socotaa. barasayskii hore xabadii hore aan marin unbay maraysaa ilaa inta laga dhammaystirayo. hadda xabadan xoog bay u kulushahay. waad aragtaa qiica ka baxaya. maasha allah, waan kala fududaynay. dhag qurux. maasha allah, aadna way u jilicsan tahay. burkuna waa inaanu marka hore adayg ahaanin sambuuska markaad ka sameynaysid. haddii kale foolyadaa ka xumaanaysa. waa inaanu jile adigu sidii sabaayad oo kaleeto unbaad ka dhigaysaa. waa inaanu kana jilicsanaanin kana adkaanin. sababtoo sabaayadda waad aragtay markaynu dubayno haddii ay daqiiqda laga xashaad xoog u adkayso ma fiicnaato. soo markastaba inay jilicsanaataa fiican. wax farahaaga ku dhegdhegayana aanay ahayn. si fiican aad u xashto. maasha allah, xabadda kalena waynu kala bixinay iyadana. qiic baa uga baxaya. maasha allah, hadda saasaan 4 xababa ku dhammaystiray ee labada isu saarnaa 8 xabo noqonayay. kadib waxaynu sameynaynaa duqadii iyo khudaartii dhexda laga gelinayay. maasha allah, duqada marka hore waa inaad shiishid, yacni maqliga kusii shiishid ama digsiga waxaad ku sameynaysid si ay u bislaato. basbaaskii baynu isagana jarjaraynaa. basbaaska haddii aanad cunin oo kulaylku uu ku dhibayo uma baahnid inaad ku darsato. barbarooniga caadiga ah baad ku darsan kartaa ama babrika, qofba siduu yaqaan. hadda basbaaskii baynu ku shiilaynaa. basashii iyadana waynu soo jarjarnay sidanay maasha allah ku tahay. sambuusku anigu waxaan rabaa hadda 32 xabo inaan sameeyo. haddaad rabto qiyaas ka yar inaad samaysatid waad yaraynaysaa un khudradda iyo hilibka iyo daqiiqda labadaba. haddii aad maxay tole kasii badan rabtid waad ka badin kartaa. qiyaastiisu iska caqli bay u baahan tahay. laakiin hadda intan aan meesha ku shubay hilibka basashu ilaa 1 kiilo ahayd. daqiiqduna waxay ahayd, waxaan ka wadaa hilibkuna wuxuu ahaa 1 kiilo wax yar dhiman. hadda waxaynu ku daraynaa xawaajka koriyandarka loo yaqaano ama geedaadari ama xawaash buurbuur iyo hilib qofba siduu yaqaan ayaan ku daray. kamsaraha seedkiisa weeye. marka haddaad kamsara haysatid fresh ah isagana waad ku darsanaysaa ama halkiisa kamsarahaasaad gelinaysaaba. xawaashkana qofku wuxuu ka helo ayuu ku darsan karaa. laakiin anigu koriyandarkan ku jecelahay sambuuska. toontana kuma jecli ilaahay amarkiisa.
laakiin wax yar oo toona waxba ahayn oo meel fog kasoo dhadhamaya waa lagu darsan karaa. milix baynu iyadana ku darnay. maajiga ayaa xoog ugu sii macaan, haddaad rabtid maaji baad ku darsan kartaa. maasha allah, hadda khudradii iyo hilibkii way noo soo bislaadeen. waxaynu iyadana qasanaynaa daqiiqdii yarayd sambuuska marka la qaabaynayo la marin jiray ama lagu xabagayn jiray siday isugu dhigto oo aan u kala furfurmin. marka waynu qasanaynaa. maasha allah, sidan aynu usoo qasnay dhag. waa inaanu wax biyo kaa noqonin, adeeg zaaidana aanu noqon. haddii adeeg zaaida noqdo daqiiq fara badan buu doonayaa marba inaad qasatid, laakiin sidaa dhexdhexaadka ah ayuu ku fiican yahay. maasha allah wuu ku noqonayaa. hadda fooliyadu si fiican bay inoogu samaysantay, khudradu si fiican. khudradana waa inaad dhadhamisid iyo hilibka markaad sameynaysid inay milixdu ka yartay iyo in kale, sababto sambuuska hadduu milixdu ka yar tahay macaankiisu ma fiicna. marka dhadhami, eeg, maxaan ku idhahdaa, maasha allah saas dhagta abuu noqonaya. waa inaanay daqiiqda qoyanna meel walba aanay kaga bi'bi'in, halkaas un aad ugu tala gashay inaad ka mariso un ay kaga taala haddii ilaahay ka dhigo. dheg weeye maasha allah, si qurux badan. xabadii labaad baynu ku guraynaa iyadana. maasha allah, kaaliska arag carafta iyo waxa meesha kasoo kamkamaya. sambuus aan caadi ahayn baa meesha kasoo baxaya. maasha allah, sidaasun baynu ku wadaynaa haddii ilaahay ka dhigo. hadda sidaasaynu kusoo wada laabnay 32 xabe sambuuska ahaa. maasha allah, saliidiba dabka inoo saaran oo inoo kululaanaysa. saliidda haddaad rabto inaad ogaatid inay kulushiyo in kale, wax yar oo sambuuska markii hore daqiiq yarood ka jartay oo kale ayaad ku tuuraysaa ama ku ridaysaa. tuuritaanka waxaan ka wadaa ku ridaysaa. kadib haddii ay gudaha hoose fadhiisato weli ma kulula, haddii kalena maxay tolay kor usoo booda ay shiilantay markiiba casaatana way kulushahay. marka iyadana sidaasaad ku ogaanaysaa haddii ilaahay ka dhigo. xabadii ugu horreysay baynu ku ridnay. maasha allah, kaalayska arag. si fiican bay inoogu shiilmaysaa. wuu karkarayaa baan ku uri, wuu karkarayaa. kaalayska arag weeyaan. qaraabaha ilaawina subscribe inaad saartiin haddii aad ku cusub tihiin channelka. haddii aad hore iigu jirtayna videoga haddaad ka heshay suulka kor taag. waxaan ku idhi bahalkanaynu ku ridnay waa ka maaragtay shabaga ahee baastada lagu miiro. sidaasaad u taagtaagaysaa, sababtoo ah haddaad sidaas samayso saliidda yar ee dhexda ka gashay way ka goraraysaa. deedna iyadoo saliidii oo dhan ka baxday ayaad hadhowto meeshii aad ugu talagashay inaad ku riddo aad ku ridanaysaa. sambuuska ma fiicna mana macaana inuu saliid dhexda ku yeesho, caafimaadkana uma wanaagsana. maasha allah, sidan quruxda badan buu kusoo baxay. ha ilaawina